xukuumadda Somaliland go'aanka waxay ku joojisay dadka Soomaaliya ee ka imanaya Yemen ee qaxootiga oo kaliya markabkii 11aad ee sida qaxoonti ka soo cararaya dalka dagaalada ka dhacayaan ee Yemen ayaa maanta soo gaaray marsada caalamiga ee magaalada Berbera qaxoontiga oo saarnaa markab lagu magacaabo Enfi Asaadadiin ayaa tiradoodu dhanta 41 qof oo isugu jira dad u dhashay Somaliland iyo Soomaaliya iyo dalka dagaalada ka socdaan ee Yemen markabkan sida qaxoontiga ka soo carray dalka Yemen ayaa markii uu ku soo xidhay takada magaalada Berbera waxa ismaandhaaf ka dhax qarxay maareeya ku xigeenka takada Berbera Cumar Abubakar Jaamac iyo barasaabka gobolka Saaxil Mudane Fahmi Cabdi Bidaar oo isku maandhaafay dejinta qaxoontiga iyagoo markii dambe barasaabka gobolka Saaxil uu qoray warqad lagu dejinayo qaxoontigan waxaana murankaas u dhacay sida tan sideed Yemeniina iyo inta kale hal qoys oo Soomaaliya iyo inta kale oo Somaliland markii loo lagu arko oo reer Berbera iyo isku jira reerkiisa runtii qoyska Soomaaliya ku soo dhaxdoontay markii hore waxa lagu soo daayay inuu yahay mataqaanaa Somaliland markii dambe ayaan imkaan fuula ayaan ogaanay saadarteed waxa weeyaan amarka wasiirada waxa ku soo deeynay qoyskiina inay dadka soo raacaan sidii loo joojiyay weeyaan joojo assalaamu calaykum intii barakacayaasha ee soo gaaray marsada caalamiga ee takada Berbera oo wax ka weydiinay xaaladooda ayaa waxay u hadlaysaa tan Soomaaliya maxaa loo cadabaysan caruur yaryar sidana markabka ku soo raacay wali waa laga dawadiin rafaad nabadii ama nacaliya bas saaraaniga ana rabbi Soomaaliya waxa ay saaqay waxaan noo kala saaraysaa koonfur Soomaaliya kulli waa wada Soomaali hadii ka saacad ana rabbi Soomaaliya waxa ay Soomaaliya ana ma soo inta saddex haween miya ma qaana ku jirna caruurta waa naga xanuunsantahay meeshan waxa cadabaysan ana waa haysana أنا سومالي أنا شو الغدا كله إنه سومالي. على يقول دي أنا كده مركب. أنا سومالي كفر حتى وما وصعوا كفر سومالي شيء. وعن رب رعية رجالسنا عيال كفر. عن عطنا يا مدام سومالي أنا ولا نهاي إن اللي تجيو أو عن بلنا السنة. كتبنا عنه وعن مال رأس المال على قلنا دي وإحنا قابلين سجين حتى. دولن هيئتنا قابل شادين سجين معاونة هدين سجين. أنا قاعد تبرينا بالأرض أنا بتجي. ليه عرورة وطا. oo hablo badan wallahi baa maray oo billahi baa maray hadii wadankayga la iga dijiyo markabkaan saarana aniga ciyaalka badan isku shuweena dhimasho wallahi dhimasho ma dhaafay Soomaalina diidan tahay anagana nafteena inaan go'na diyaar u nahay hada ayamana ka soo carnay xabad wadankeena hooya u nimid waxaan wataa kooyta nafraana dagaal caruuraan wadnaa hal codsanaysaa rabta waxaan codsanayaa wadankeena nabad soo degno marna maana isku soo wada duuba qaxootiga maanta soo gaaray takada magaalada Berbera ayaa ku soo beegmaya xilli maraakiib iyo dooniyo badan sida qaxoonti ka soo barakacaya dalka ay ku soo jiraan badaha lana filayo in takada Berbera soo gaalan saacadaha soo socda waxaana la sheegay in qaxootiga ay maraakiibtu soo qaadan ka hor intii aanay xukuumadda Somaliland aanay soo saarin go'aan ku mamnuuca qaxootiga dalka soo galaya waa Sadiq Arab Salaban difeeshka madaxa bannaan ee Space Channel magaalada Berbera